daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhabka hadal oo ah laba xiliyadan oo kale aad si toos aad ugu daawataan ama aad ugu dhagaysataan beejka rasmiga ah ee Sirju Media Group. waxaana barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah qadka teleefoonkana si toos ah uga jira Suuban Mahad Dirir oo ayadu sheegtay inay tahay madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland. marka ugu horeyso waxaad ii sheegtaa magacaaga iyo title-kaaga. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waa salaamaya. magacayga waa Suuban Mahad Dirir anigoo ah madaxweynaha Jubbaland oo sida xorta iyo xalaasha ay dadka shacabka Jubbaland aad ku soofiyeen. waxaad ii sheegtay inaad tahay madaxweynaha sharciga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. goormee lagu doortay xageesa lagugu doortay? waxaa jiray kacdoon dhalinyaro ah oo ka soo horjeeday Axmed Madoobe iyo qaabkiisa ama dhowr iyo tobanka sano oo dhibaatada ku hayay oo codsi ila yimid sidii maxaa la dhahaa kacdoonkan loo hirgelin lahaa oo ay u raadinayaan qof oo wax la qabto calashan hogaamiye kacdoonka wadi lahaa. fanahaantii halkaas baan kusoo baxnay dhalinyaradii baan wixii la qabtay maadaama Axmed Madoobe waan la hadalnay kahor intaana taakamayn inuu wax badan saxo inaan hogaamiye kacdoonka noqdo. halkaas ayaana lagu doortay Kismaayo dhexdeeda. shacabka Jubbaland sidayse ku arkaan maxayse ku istiraafsan yihiin xilligan? runaantii waxyaabaha kalsoonida xoog ay gelinay waxay tahay shacabka Jubbaland ay istiraafsan yihiin madaxweynahooda dhinacahay. laakiin cabsi badan oo waxaa ku jirta inta xaqraada lagu soo dilayo inta aniga dhibka aan marayo laakiin runahaan istiraaf sax ah ayaan shacabka ka haystaa. laakiin sababtooyin waxay ku yihiin siyaasadda carqaladda iyo dhibaatada iyo xaasadka iyo xaqraada dowladda federaalka intaas lagu sameynaysay waa qof rabitaanka shacabka ku imaatay. rabitaanka shacabka ayaana maanta ku fadhiya xaruntii Garbaharey oo laga xukumay Jubbaland. sida maqaalka aynu ku hayno waxaa jiray in badan in naftaadu ay halis ay gashay bal maxaa ka jira arrintaas? runaantii way jirtay dhowr goor maxaa la dhahaa shirqoollo adiga lagu sameeyey iyo dhowr goor oo adiga maxaa la dhahaa siyaabo kaleeto lagu soo weeraray. laakiin midda ugu daran waxay ahayd markii Amsom qof ah Amsom sheeganayo luqadda Ingiriiska ku hadlayo uu soo wacay iguna yiri shirkii waxaan ku kaxaynayaa wadatashiga markaa golaha wadatashiga qaranka oo markaa xamar ka socday oo doorashada inteedii ahayd bilowgiiba in maxaa la dhaxal inkaa soo diray escortkii baabuurkii company escortka ku samayn lahaa ku qaadi lahaa ku gaarsiin lahaa halkaaba ahayd. oo runaantii hadhowna kusoo baxay taleefon la raadinayay oo qof dhan oo la raadinayay ahaa markii inaanan aqoonsiga dowladda isiinin sida Amsom iigu soo dirayo oo baabuurkaas iigu soo dirayo ayaa shaq igu noqotay. intii aad xabsiga ku jirtay ma jiraan wax jir dil ah ama adiga lagu geystay? runaantii markaa xabsiyada ku jiray wax jir dila ima gaarin laakiin ka hor intaanan xabsiga gelinin waa iska cafiyay dhalinyaradaas maxaa yeelay dhalinyaro ma ahayn calashan isticmaalay ahayn laakiin way jirtay wax jir dilo oo lagu geystay way jirtay. waxa aad raadinaysa waana ka muhiimsan dhalinyaradaas waa dhalinyaro Soomaaliyeed qofaan hadda wax u qabado maxaa ma jirto laakiin jirdil badan baa gaaray. ilaal aana qalashan hataa jirkayga marka qaarkood muqtar ay wax iga gaareen xabsiga markii la geliyo kaleeto inaan ku dhaxayso iyadana saas oo kale iyadoo iyadoo jirki gaartay mar ay qolada ugu xiraayaan ay rabeen in iyadana sidoo kaleeto marka muddo hadda waxay iga gaarsiisan gacan baa waxay iga gaarsiisan laakiin alxamdulillah wax weyn oo maanta dad baa ka badan ku taala wax weyn oo maanta waana insha Allah baa ka taban doonaa laakiin walaa way igu reegtay waana xasiyay runaantii maraba inaan hadeertaan ka dhigo runahaan dhalinyaro badan oo harkii hasi tiri oo ila imaatay oo iga codsatay way jirtaas oo marka qof aan hadda ku qabo ma jirto. mis leedahay haddii aad rag ahaan lahayd caqabadaha hadda ku soo gaaray waad ka gudbi lahayd? shaki kuma jiro haddaan nin ahaan lahaa waxay soo gaaray way soo gaarteen oo haddaan nin ahaan lahaa maanta hero baa ahaan lahaa. sida loo xaqirayo niman aan aniga waxaan sameeyey aan samayn karin aragtidaas fikirka wanaagsan oo aan hirgeliyey iyo qaababka aan ku hirgeliyey iyo meelaha aan u maray oo carqabadahaas oo ilaa iyo hor imaanayaan aan maanta dagaal aan ka ridin dhibaato aan ka ridin
aanan علشان إنتادين رانتي هيرو بان هالها ما أنت هتن هالها madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax wada tashiya intee leeg ayaa idin kala dhaxeeyay runahan Farmaajo waxaan isbaranay aqoon ma lahayn waxaan isbaranay markii la keenay 2011 tankii dhamaadkiisii markii la keenay baan isbaranay wada shaqayn sax oo dawladnimada markaa naga dhaxaysay maxaa yeelay kuma shaqata Jerman baa ahaa asagana ra'iisul wasaarihii markaa jiray uu ahaa kadibna markii shaqada laga soo علشان shaqadii laga soo eriyay oo shaqada 2015 kii laga soo eriyay oo xiriir fiican baan lahayn oo waxaan ka qayb noqday doorashadiisii dadkii campaign-ka la waday oo in la doorto maadaama ay shacabka rabaan oo muhiimadda markaa waxay ahayd shacabka ayaa xog Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u rabay maadaama ay shacabka rabaan si daacad ah oo ilaahay igu ogyahay oo aan علشان ummadaas waxa ay rabto inay hesho ah ayaan ugu dadaalnay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne noqdo 3 bilood markii uu madaxweynaha noqdayna 3 bilood gudahood wada shaqayn dambe oo naga dhaxaysay ilaa aanana oo ay ma jirin waxaan wada kulanayna inta kadib waxay ahayd 3 bilood kadib intaan kulanayna waxay ahayd hal mar oo garoway ku kulanay markaaba iyuna horeysay iyuna dambeysay 3 bilood ku Farmaajo jiray markii caticidani cali wasaarkiisii marka wax wada shaqayn oo dambe oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama tala aan isku leenahay inuu ii diidan yahay inaan maxaa la dhahaa madaxweyne Jubbaland noqdo oo uu uga dhigay excuse dadkii la hadlo excuse uu uga dhigay Farmaajo joogin Xasan Sheekh iyo shaqaynaysayo Xasan Sheekh iyo groupkiisa iyo madaxweyne sharxiinta soo doonato Farmaajo ku soo diraya haddana dawladda Xasan Sheekh waxa la leeyahay Farmaajo uu soo marka waxyaabaha nonsense-ka oo sudan qof علشان maskaxdeeda iyo aragtideeda iyo fikirkeeda ku socota oo ayada waxa ay qabatay ayada ka bilaabatay iyo dhalinyaro yar oo maxaa la dhahaa la qabteen baanahay dalka shayaan in wadanin hadayn recordkayga iyo aqoonadayda la fiirin karaa qof wax qarinaysa ma ihi eedeymahaas oo dadka ay ku soo jeedinayaan bal maxaa ka jira sidaan ku sheegay wax ka jira ma jirto waa eedeymo la rabo in maxaa la dhahaa sidii waxay lagu burburin lahaa haddii aan ka dhaxgalo bal xilligan maxay yihiin caqabadaha ugu weyn ee kugu hor dadban raggaan xaqiraada ku jira kan dumarka xaqiraya raggaan aan u qabin iimaanka lahayn kalsoonida qabin qofka bini aadanka waxa uu maray hadda madaxweyne Xasan Sheekh talka madaxweyne ka yahay laakiin qof walba waxa uu maray inuu ku ixtiraamo oo ku hagaajiyo laakiin rag kale inay naagtan waxaan ma haysato maanta wixii isoo gaara oo علشان in maanta la xaqiraayo oo saa wixii loo yareynayo ayaga loo haysta dawladda loo haysta waa u jeeday oo shirkii wada tashiga waxa la fadhiisanay Axmedow baa la fadhiisanay annagiina banaankaana loo tuuray labadii sano oo saa awood uu ku helay inuu ku fadhiisto amaanta waa baaba'day arrinta aad sheegtay in dibadda ladin saaro Axmedowna la fariisiyo ma ka hadasheen arrintaas channel waxa la soo shaqeynta dawladda inaan joojiyay waxyaabaha waxay tahay markii saas oo kale lagu karaamo dilo oo karaamadaada ku kasaaloo dhaco xitaa inaad wax sax ah waana dawladnimada waxa ay tahay si kasta dawladda Xasan Sheekh Maxamed Awaad madaxweynaha dalka qof walba oo shaqaalaha xafiiskiisa jooga oo dhulka xaqaya xuquuq leh xuquuqdii aan lahaa oo shacabka Jubbaland ay lahaayeen iyo inta aan marnay markii markii laga soo qaaday automatically shacabkii iska daad ilmahayga yar oo Soomaaliya ka shaqeynayeen baa garashadooda indhaay hooyar waxa fadhiya intaas waad ku dhimanaysay Xasan Sheekh oo soo fadhiyay shirkii wada tashiga Axmed Madow ilaa aan wada shaqeyn waa joojinay laakiin hadda maanta waxa ka soo degay Axmed Cabdishakuur oo u imaaday arrimaha cabdinimada taasna marnaba inaan dhibaatayno aan qabatay diyaar uma nihin madaxweynaha hadda aad isku haysaan talada dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoowe wax wada hadal ah midin dhaxmareen horta Axmed waxa ogaataan hadda talada Jubbaland ma hayo waxaana jeclaan lahaa media iyo everybody inay dawladnimada waa qaab iyo nidaam iyo waxa way process la marweeyo madaxweyne dhan oo dalka si sharciyan u joogay oo soo saaray asagoo anaga favor noogu sameeyay anagoo taagan nuna taan lagu dhibaateeyay dawladda soo saaray 2 sano in Axmed Madoowe kumeel gaar ah
oo doorashada waqtigeeda ku dhamaatay kadibna uu dadka wada heshiisiin u sameeyo markaana waxa la wada ogol yahay si Jubbaland uga dhalato inaad wada hadashaan oo si hoose arrintan aad uga hadashaan maxaa hortaagan runaankani waa isku dayay dhowr goor baan offer mar kastoo asaga uu inuu samaynayo aad u moodo waxaa moodaa si halaha musuqmaasuq oo qariban inuu samaynayo laakiin aniga si janawan ah oon cid walba ugu sheego oon ilaalana diyaar baan u ahay noloshiisa inaan Axmed Madoobe inta ka hartay inaan wax la qabanaan diyaar u nahay inaan dawladda aan dhisayno maamulka aan dhisayno inuu wax ku soo darsadaan diyaar u nahay wax annaga aan diidanahay haba yaraatee wada hadal ah ama sidii horey loogu socon lahaa oo shaqakan dhibaataysan oo 12 sano dhibaatada ku jira ee horey ugu socon lahaayeen diyaar baan u nahay wax kastaan diyaar u nahay siyaasiyiintii hore ee Jubbaland Barre Hiiraale iyo Cabdiraxmaan Seeraar xiriir intee leeg ayaa idinka dhaxeeyay horta runtii qof reer Jubbaland oo siyaasiyiin aan isku kacsanahay ma jirto qof walba xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya inkastoo hadwayaan aanan ismaqal maxamed sayid baa xiriir fiican naga dhaxeeya oo maanta dhibaato aan isku qabno jirin Axmed Madoobaha kursigaas inaan ka qaadayo maahan inkastoo aan wada hadlin ayaan laakiin dhibaato aan qof siyaasi ah oo Jubbaland ah oo aan dhibaato isku qabno waxaan leeyahay baan oran karaa maanta maadaama aan leeyahay kursiga laakiin qof kale oo dhibaato isku qabno ma jirto xiriir wanaagsan ayaana naga dhaxeeya ama wasiirada ha ahaadaan kuwa hadda xildhibaanada wada noqday ha ahaadaan kuwa jooga oo awal hore u joogi jiray kuwa hadda jooga qolo aan maanta aniga ishayno waana waxa aan u aaminsanahay inaan ahay qofka keliya oo midayn karta Jubbaland siyaasiyiinteeda waxaa xilligan qaybo ka mid ah dalka ka jira abaar in badan soo noqnoqotay maxaad is leedahay ama sidee wax loogu qaban karaa waad is leedahay xilligan runtii waxyaabaha igu kalifaya inaan halashaan siyaasadda inaan usoo galay oo igu kalifaya intaanu dhibaataa inaan maro midda koowaad aan ku sheegay waxay ahayd xadgudubka haweenka iyo dhibaatada loo geysanayo iyo xaqiraada lagu hayo markaa ogaaday tan kale ugu daranna waxay tahay maadaama aan waqti badan kasoo shaqaynayay arrimaha kobcinta dhaqaalaha waxaan aaminsanahay in waxaan la qaban karo abaartan iska soo noqonaysa loo hortago khilaafkan siyaasadda oo halashaan mar walba ka joojinaya dadkii inay shaqeeyaan oo dalkii dadkii inoo shaqeeya ah in la baabiyo un keliya wax looga qaban karaa meesha khilaafka timeka iyo dhaqaalaha iyo waqtiga la gelinayo in la geliyo in dadkii loo istaago shacabkii la wacyigeliyo xeelal waa noo qodan yihiin inta noo qodan iyo intii lagu dari karo inta lagu dara si cilmiyeysan in xoolihii loogu sameeyo maxaa la dhahaa breeding farmyo ay degmo walba breeding farmyo waaweyn lagu suuqiyo waa wax la qaban karo aan dhaqaale badan ku baxaynin xeelashii muxuu yahay qorshahaga siyaasadeed ee xilligan run ahaantii saan hadda kuu sheegay annaga muhiimadda ugu koowaad waxay tahay dadkan inay abaaraha iyo dhibaatada haysata ka hortageedii la sameeyo haddana wixii la gaarsiin karo iyo sidii wax loogu qaban karo loogu qabto jifaya adiga alxamdulilah ay samaynayaan qorshaha aan ka leeyahay oo ugu horeeyo hortibinta iile waxay tahay inaan sidaan uga hortegi lahayn sida hadda aan kuu sheegay degmo walba inta hadda aan joogno degmo walba aan dadku wacyigelin ugu soo bin lahayn hadda magaalooyinkan oo kale waa laga wadaa hay-adihi hawshii waa wadaan in ceel walba haws lagu agbeero maxaa la ii sheegay loo sameeyo brinifaarya la sameeyo kadibna systemkii biyaha loogu waraabinayo la sameeyo dhaqaalaha daahilataasaan ku rajaynaynaa baaqa ugu dambeeya aada u daraysid bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka adiga ku dhageysanaya ee barnaamijka dhabka hadal ku xiran bal muxuu yahay run ahaantii dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa gaar ahaan shacabka Jubbaland waxaan leeyahay waa ka xumahay run ahaantii waa ka xumahay inaan la idin gaari karin inaa waxaa filanaysaan iyo saa wax u filanaysaan ha u heli la-adimiin wax aan loo dhibtoonin lama gaaro gacmahooda jir bay wax ku gooyaan run ahaan waxaan ka warsugayna waxay tahay dawladda hadday dawladda go-aansato oo ay go-aan sax ah oo go-aan wanaagsan qaadato oo ay halashaan siiso maxaa la dhahaa aqoonsigii dawladnimada waxaa igu ballan ah sida abaarta uga hortegi lahayn qof kale Jubbaland ah inuusan baahoonin oo uusan maxaa la dhahaa xoolihiisa intay baaba'aan wax u shaqeeya ama dawladdii loo idmaday inay u shaqayso oo adeegaha u ahayd uu waayo inaysan dhacaynin waxaan ilaahay ka baryayaa
oo inaysan abaar dambe inaysan dhulkaan hidkarayn Soomaaliya oo dhan aysan ka dhicin. waa tahay daawadayaal waxaan intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa waraysiga gaabnaa ee toddobaadkan aan la yeelanay Suban Mahad Dirir oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaana waraysigaasi qayb ka ahaa barnaamijka dhabka hadal oo alaba si toos ah toddobaadkiiba mar aad ku dhagaysataan ama aad kala socotaan page-ka rasmiga ah ee Facebook aanu ku leenahay Sirju Media Group. idinkuna waad ku mahadsantihiin dhagaysiga iyo la socodka barnaamijkeena waxaan idinkaga tegaynaa kulanti dambe oo xiiso leh.